هذا هرمونات عافمات كي قبل كه مركا راد كيشون بي شغالها كله فرح بدن لوزارة هرمونات عافمات أما دكتورة شوغان أما حنانها شوغاني أي لندن مركا واحد رجيني إن موارقون نقون دونا مركا قف شغالها تصالون نقطة إسلام مركا أنا مركا قرب بوحة سيا حرم كستا عافمات قبل كه كنت على جودهان ama gaar ahaan degmada Berbera waxaan kula dardaarmayaa markaa isduuha cusub iyo teamkiisa shaqaalaha ay ugu iman doonaan goobaha kala duwan ee ay imanayaan haday tahay dhakhtar haday tahay xanaano haday tahay markaa xafiisyada wasaaradda gobolka inay yihiin Allahumma salli ala Muhammad shaqaale duruufo kala duwan ku jira qaarkood markaa duruufta kuleylka ay duruuf dhaqaale u raacdo markaa in shaqaalahaana markaa dareen gooniya iyo ay u yeeshaan markaa tiimka cusub waxa iyaguna halkaasi hadal ka soo jeediyay mas'uuliyiintii hore ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee xilka wareejinaysay sida isduwihii hore ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Saleebaan Xuseen Nuur iyo sidoo kale Cabdiladiif Maxamed Axmed oo iyagu maanta xilkaasi wareejinaya ayaa ka warramay waxyaabihii oo qabsoomay aad u fiicay caafimaadkiisu gobolka ka degma ahaan ka tuulo ahaan ka cusbitaal ahaan dhammaan aad u wada fiicayn adduunka ma wada jiro wax boqol jira laakiin wax kastaaba waxa leeyihiin wax meel lagu qiyaaso lagu qiimeeyo marka caafimaadka laga hadlayana waxa qiimeyn kara qof ehelka caafimaad oo dhaqtara ama public health oo garan kara indicatorska ama waxyaabaha lagu tusaale qaadanay caafimaadku gobolku halku marayo caafimaadku waxa weeyaan meelaha loogu shaqeeyo ama loogu adeego runtii dadka adeeg u baahan ama aan oran karno meesha bulshada laga gaarsiin kara adeeg oo waliba baahi ay u qabaan weeye caafimaadku runtii shaqaalaha aad baan u mahadnaqayaa waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa mas'uuliyiintii iyo maamulkii aan imka muddadii u dambeysay soo wada shaqaynaynay Mubaarak Yaasiin warsamay isduwaha cusub ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Saaxil iyo sidoo kale Yaxya Qaasim Cumar oo isaguna ah madaxa caafimaadka asaasiga ah oo halkaasi hadal ka soo jeediyay ayaa bulshada ka codsaday in xilkaasi loogu duceeyo iyagoo ballan qaadeen si daacadan ay u gudan doonaan intaas kadib waxaan hortiina ka ballan qaadayaa inaan bulshada ugu shaqayn doono daacadnimo sinaan iyo cadaalad dadaalkayga ugu badan aan gelin doono sidii aan u horumarin lahaa caafimaadka gobolka Saaxil halkaasna aan uga sii anba qaadi lahaa shaqadii fiicnayd ee uu qabtay isduwaan xilka kala wareegayo oo runtii shaqo fiican qabtay intii uu xafiiska joogay runtii maanta aniga hadal badan ima furna waxaan dhamaantiin idinka codsanayaa inaad igu soo ducaysaan mas'uuliyadda bulshada u qaaday iguna garab siisaan sidii aan u gudan lahaa waajibaadkayga shaqo salaanka bacdi kale maanta waxaan qaadnay mas'uuliyad culeyskeeda leh waxaan Ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa ta'aala in mas'uuliyadda nagu asturo idinkana waxaan ku codsanaynaa inaad nagu soo ducaysaan waxaan insha Allah ballan qaadi doonaa isku day doonaa Ilaahayna la kaashan doonaa in mas'uuliyiinta naga horeysay halka ay soo gaarsiiyeen aan kor uga sii qaadi doono annagoo ku duulayna baalasha bahda caafimaadka waayo annagu leaders ma noqon doonaa cidda wax nala qabanaysa nala shaqaynaysa waa intiina caafimaadka gobolka shaqaysa xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Berbera iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socota wasaaradda horumarinta caafimaadka oo iyaguna halkaasi hadalka isu dabamaray ayaa soo dhaweeyay mas'uuliyiintan cusub ee xilka la wareegaysa iyagoo sii sabootiyay isduwihii hore iyo madaxii caafimaadka asaasiga ee hore ee xilka bedelayay waxaanay tilmaameen in mar walba ay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo sidii loo horumarin lahaa caafimaadka maadaama ay muhiim u tahay qaybaha kala duwan ee bulshada runtii markaynu caafimaad ka hadlayno mas'uuliyad weyn baa ayaa inaga saaran oo runtii xilalka la hayo waxay ka mid tahay kuwa ugu mudan waayo bini'aadan baynu gacanta ku haynaa oo qolada caafimaadku bini'aadan bay mas'uul ka tahay bini'aadankuna wuxuu u baahan yahay mas'uuliyad dheeraad ah oo ka badan tan shaqooyinka kale ee caadiga ah isbeddelkan maanta dhacayna waxaan leenahay waxaynu sii sagootaynaa mas'uuliyiintii hore kuwa cusubna waa ku soo dhawaynaynaa mas'uuliyadda waa iska kooban tahay waa madal xil wareejineed waana sunnaha dawladnimo in laamaha dawladda ama institutionada dawladda marba cid loo dhiibo oo halka ay ciddaas soo gaarsiisay cid kale oo ka sii qaada marba loo dhiibo waxaan leeyahay intii aad noo shaqayseen magaaladiinni iyo dadkiinni baa u shaqayseen ilaahay ha idinka jasaaysiiyo
meel khayr qabtana haydi geeyo qolada cusub waxaan leeyahay soo dhawaada ma tiidin dad magaalada ku cusub waa magaaladiinii waxa u shaqaynaysaan waa walaaladiin iyo hooyooyinkiin iyo aabbayaashiin waxay u baahan yihiin waa dad nugul inay idinkuna dad jilicsan u noqotaan oo u dhibirsanaataan oo dhagaysiga u badisaan agaasimaha cududa shaqaalaha ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Cabdiraxmaan oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa hadal dheer ka soo jeediyay oo kaga hadlayay arrimaha caafimaadka iyo waliba sida wasaaradahan ay kaalinta muhiimka ah uga qaataan waxa uu soo dhaweeyay mas'uuliyiinta xilka la wareegaysa isagoo sidoo kalena hadallo duco iyo dardaaran isugu jira u sii jeediyay mas'uuliyiinta xilkaasi wareejinaysay waxaan doonayaa inaan hambaliyeeyo oo markhaati ka noqono madashan xilka lagula kala wareegayo oo ay kula kala wareegayaan laba mas'uul oo hore iyo laba mas'uul oo dambe ilaahay waxaan uga baryanaa labada mas'uul cusub inuu xilka ku asturo oo u fududeeyo biidnillaahi kariim anin ku daray waxa weeye qoladan reer Berbera halkan waxaan arkayaa madaxdii gobolka iyo degmada iyo xildhibaanadii iyo mas'uuliyiintii iyo labeentii bulshadu oo meel isku wada timi hargeysa ka nimiyo la isma wada haleelaba saa waxay ka dhigan tahay in runtii u midaysantiin horumarka iyo waxa weeye muhiimadda oo caafimaadku idin sameeynayo midna waan ka cudur daaranayaa waxa weeye wasaaradda horumarinta caafimaadku waxay leedahay way ka duwan tahay wasaaradaha kale waa ciidan oo kale waa ciidanka labaad ee qarankan odhan kara waxa aad u cajiiba halka wax lagu celinayay mas'uuliyiinta xilka ka tagay ayagana meel khayr la nugu ducaynaa already wasaaraddoodii way joogaan waa shaqaale wasaaradda caafimaadka waanay joogayaan Saleebaan oo imaka dhakhtarkiisoo ahaanaya Cabdiladiifna waxa weeye shaqada halkiisii ka sii wadaya kaliya waxa wareegay waxa weeye waa mas'uuliyadii labada inan ee la idin magacaabeena waxaan filayaa waa laba inan oo reer Berbera waxaan ka codsanayaa golaha deegaanka iyo maamulka iyo xildhibaanada iyo bulshada iyo ganacsatada iyo shaqaalaha guud ahaanba in la shaqeysaan ku-xigeenka duqa degmada Berbera Nuur Cabdi Jaamac Nuur Cabdi iyo sidoo kale xukuyaha gobolka Saaxil Nuux Maxamed Saleebaan ayaa iyaguna soo dhaweeyay mas'uuliyiintan cusub iyagoo sidoo kale ka warramay sidii ay ula soo shaqeeyeen mas'uuliyiintan xilka ka sii degaysa waxaan leeyahay isuduwaha cusub iyo tiimkiisaba ilaahay xilka ku asturo waan garab taaganahay waan la shaqeynaynaa hooyada serviceka u baahan baa macna inoo sameynaysa inaga inamadeenii oo midna laga qaaday xilka midna la soo bedelay wax macno weyn oo ay sameynaysaa ma laha laakiin waxa macna sameynaya hab maamulka iyo maaragtay isbedelka nidaam ee hadba ay dadkeenu arkayaan dhinaca kale marka la eego isbitaalku ama caafimaadkuba political maaha waa service loo qabanayo qof wal oo maaragtay kamida bulshada qof kasto xanuunsanaya imanaya qof kasto maxay ahayday dhalanaya ku dhalanaya shil kasta oo maaragtay dhacaya ayaa maaragtay loogu diyaar garoobaya waxaan ilaahay ka rajaynayaa mas'uuliyadda ballaaran xilka culus ee qaranka ay u qaadeen inamadaas in ilaahay u fudaydiyo labada inan ee tegey waan u ducaynayaa waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay wixii ay qarankooda dalkooda iyo dadkoodaba ay u qabteen in ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro in ilaahay wanaag iyo meel ka sii khayr qabtana ugu abaalgudo ayaan ugu ducaynayaa waxa uu dardaaran iyo duco aad ugu sii baahan labada qof ee imika xilka la wareegaya oo u baahan iyaguna inaynu la dardaaranno oo aynu wax badanna markaas sii furno haddii ilaahay ka dhigo